بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله runtii anuu caaw waxba kuma soo talagelin laakiin markii la yidhi kitaab qur'aan oo la fasiray ayaa warramayaa waxaans idhi war higelka xooji waa ka maqnaanin qur'aankaasi la tafsiiray waana meel buug ama kitaab lagu daahfurayo soomaaliyeed halkii ugu horreysay aan imaado qoraaga aad baan ugu mahadnaqayaa si aad u weyn waxaanan rajaynayaa inuu buuggiisu wax badan uu faa'iideeyo afaf in la isku tarjumaa wax fudud maaha dee waxaan filayaa sheekh dalmar oo takhasuskiisa ay tahay baa fadhiyo ay ahayd inuu ka hadlo iyo rag af soomaaliga iga badiyo badan anuu quraano ma yahay afafkana waa la iga badiyaa kitaabka qur'aana marka ay sifaynayaan waxay yidhaahdaan wuxuu ka mid yahay waa buugga dunida loogu akhris badan yay looguna faham yaryay bay yidhaahdaan marka la eego buugga ugu daabacaad badani waa injiilka bay yidhaahdaan waa qolada kristanka buuggooda ugu daabacaad badan oo dunida ugu tiro badan oo la daabacaa laakiin waxay yidhahdaan akhris marka la eego dee adigu muslimka tukanayuun dunida qiyaasi mise faatixa maalintii akhriya waxay yidhahdaan waa buugga loogu akhris badan yihi laakiin haddana loogu aqoonta daran yahay marka la eego oo haddaynu dadka soomaaliyeed weydiinno inta faatixa akhrida imisa faatixada macnaheeda taqaana dee waxaynu ka garan karnaa nisbada akhrida qur-aanka iyo nisbada fahamtaa inta ay isu jiraan kitaabkani markaa wuxuu soo dhowaynayaa dad badan oo aan afka carbeed aqoonin ama aan hore loogu tafsiirin aniga caawa igu horraysa xataa akhriskiisa ama eegashadiisa laakiin haddii intaasoo culamo uu sheekhu sheegay isha soo mariyeen waa rag aan kalsooni badan ku qabo waxaan rajaynayaa inuu soo dhowayn doono kitaabkan iyo fahamkiisa wuxuu kaloo soo dhowayn doonaa af carabiga barashadiisa waayo qur'aanku af carabu ku qoran yahay af carabigu horta waa luqada dunida ugu badan mufradaadka erayada af carabigu marka la isu geeyo dictionaryadiisa iyo erayadiisa waxay yidhaahdaan waa 12.3 million words waa 12 milyan iyo 300,000 iyo jajab luqada ugu dhowo kale bay yidhahdeen waa luqada ingiriisiga waa 160,000 qiyaas intay isu jiraan 25 jeer buu ka badan yahay jarmal baa ku xigo waa 150 faransiiska jarmalku waa 160 baan filaya ingiriisku wax yar buu ka badan yahay waxaan filayaa mid inuu 160 iyo midna 150 yahay midina 130 uu yahay waa say isugu xigxigaan ingiriisiga iyo faransiiska iyo jarmalka afka intaa leeg waxay yidhahdeen beri horuu dhiman lahaa haddii aanu qur-aanku ku qorayn qur-aankaa haya inuu af nool noqdo oo weli dunidu ay sidiisa u isticmaasho afafka dunidu siday u badan yihiin ama luqaadka reer galbeedka aanu dhegannaa waa muratab bay idhaahdaan waa af isdabayaal u qoran matala ingiriisiga subject baad ku bilowdaa verb baad sheegtaa dabeetana object iyo predicate wixii kale ka dambeeyay baad sheegtaa waa systemkaasi oo quruu ku iman karaa af carabigu waxay yidhaahdeen waa luqa mucrab ah godninkan iyo hoos dhigana khaatiga ka taagantiin cilmi aad u ballaadhan bay sidaan walidalik imika haddaynu rabno inu idhaahno maxamed baa cali garaacay darab caliyan saa waa u dhigi karnaa waxaynu kaloo odhan waxaynu kaloo u dhigi karnaa caliyan daraba muxamed ereyga meeshaynu doonnaa baynu geyn karnaa bimujarad inuu calaamad yaroo godniin midna wato midna calaamad yaroo kordhiga wata halkuu doono geynaya ereyga kan laakiin saddexda jumlo midna mid la macno ma aha xagga asalka waa iskaga macne oo waa maxamed baa cali garaacay
laakiin haddii bayaanka luqada carbeed iyo macaanideeda loo eego saddexda jumlo mid waliba macno dheeraad oo aan ka kala sidin buu sidaa afka caynkaasa ee 12 milyan iyo dheeraad ah ee isu rogroggiisu sidaa yahay inaad af kale ku sargoysaa mustaxiilaadka ku jirtaa bay yidhaahdaan waa wax aad u adag bay yidhaahdaan afka caynkaasiya haddana kitaabkii afka ugu sarreeyey ugu mucjiska ahaa inaad ku tijaabiso af kale inaad ku sii tarjuntaa ninka farsamadaa u dhaqaaqay dhibta haysatun baanan u qiyaas karayaa yacni ninka isku dayey waayo ninka mufasirka culamada agteeda fadhida mufasiriinta ahay dee aayadda markay sheegaan xagga kaga kaalay oo xagga kaga kaalay oo in af carabiya ku dar oo af ingiriisi ku dar gabay ku dar waxbuu isu geeyaa ilaa uu ku fahamsiiyo laakiin qoraagu dee intaa wada heli maayo qoraagu waxaa la rabaa dhowr santanisoo yaryar inuu macnaha tirada badan lee wadaadka tafsiiraya uu maantoo dhan waday inuu kuugu soo dhoweeyo ku koobo idan ninka kitaabkan qoray waxaan u arkaa daki maaha qura waa nin hardware kara succeskuna hardwareka ku jiraa bay yidhaahdaan daka qura maaha waa qofku intuu hawlkar yahee waxa kanuu tijaabiyo dee bayjajkaa yar wuxuu inoo sheegay 2015 laga soo bilaabo iyo haddoo maxay 2020 caawa waxaynu joognaa maxay 2021 intaasoo sannadood buu intaa soo waday inuu taxriiriyo oo isku dayo oo ilaaliyo dee waa ilaahay kitaabkiisiiya inaanu dhukdhuk kaga soo bixin weliba afka uu ku qoray waa afaan bislayn markay qoraalka timaado oo waayo waxaynu qoraal haysanoo dhamme waa waxoogaa gabyaaya ama suugaanuun wax ku tacalluqa ama riwaayad dheh ama hees dheh ama gabay dheh ama sheeko dheh waa adab wax ku tacalluqa af cilmi iyo cilmi qoray maaha ninka isku daya markaa inuu afkaa cilmi ku qoraa hawl dheeraadoo kalea sii haysata cabdibashiir waxaan leeyay ilaahay ha ka aqbalo subxaanahu wa tacaala isku daygaad samaysay ha kuuguna gargaaro waxaana rajaynayaa kan ilaahay in jannada ku geeyo uu ku dadaalay haddii alla yidhaah subxaanahu wa tacaala waana waxtar weyn qur-aan barto xataa qofkii rabay inuu af carabi barto waayo waxay yidhahdaan qur-aanku luqada carbeeda nool maanta bersentka ugu badani waxay yidhahdaan waa luqada qur-aanka daraaddeed haddii aad qur-aanka macnihiisa af soomaali ku fahamto vocabulariga ugu badan ee luqada carbeed ee hadda mustacmal dunida ka abaad baratay weeyaan marka xaggaa marka laga eegana af carabi nin bartay baad oo vocabulary aad u tiro badan ayaa ku soo kordhay aqoontaada luqadaaduna de waxay ku salaysantahy uun intaad vocabulary ka taqaano luqadaasi bay ku salaysantah idan kani mar waa ilaahay kitaabkiisii aynu fahmayno marna waa af carabiga laftiisii aynu fahmayno marna hadda waa af soomaaligeeniyo laynoo badhax tirayoo sidii ugu fududayd inaynu u garanno aynu u fahmayno walidaalik anigu waxaa laga yaabaa dadka afna ku fiican mayi laakiin dadka jacburka ku fiican baan ahay in carabi ingiriisi soomaali la isku walaaqo carruurtayda yaryar markaan is idhaahdo maal dhaweyd bay kuwa yarare yimaadana waxaan ku idhi jisca maan idiin sharxaya kaalaya marka 2-3 wadaba waa isafgaran weynaa ama erey soomaaliyeedoo weynoo horaan sheega ama erey kaloo carabiyaan sheega aad laakiin waxaan rajaynayaa kan inuu wax badan iga caawin doono inaanu aniga iyo kuwa yaryar isafgaran karno oo bal aan isku dayi karo inaan suwarka qur-aan ee ay malcaamadda ka soo dhigtaan macnaha guud at least inaan u fasiri doono ama aan ku kaalmayn doono anu markaasaan idiin sheegay kumaan talagelin caawa inaan hadal badan idhaahdo waxaan ku talagalay inaan golaha xoojiyo oo higilkaasi aan ka qayb qaato oo kitaabkani sidii uu noqon lahaa kitaab midho dhala biidni illaahi tacaala inaan waxaan ka geysan kara ka geysto marka waxaan ku soo koobayaa sheekha qorayna iminka dee abwaanka annaga uu nagala sarreeya xagga sheekhnimadaaan u kaxaynaynaaye waa laga yaabaa inay idinku xagga abwaannimada jeceshiini anugu xagga kalaanu sii kaxaynayaa sheekh cabdibashiirna in alla ka aqbalo subxaanahu wa tacaala luqadeenniina aynu noqonno dad bartay afka soomaaliyeed wuu sii dhimanayaa innagaana dilayna ma aha in cidi ku soo duushay oo innagaa isticmaali weynay dhimashadiisa waxaa kaaga filan
dee bal waxaad akhridaa uun xayaysiiska magaalada hargeysa ku qoran ee dadka caamada ee soomaaliyeed loo xayaysiinayo dhammaantood haddaanan odhan boqolkiiba 90 waa af ingiriisi waxaad moodaa in somaliland ingiriisku degan yahay waxaanay ahayd inaynu afkeenna ku qoranno waxay ahayd wax badan aynu isu sheegayno inaynu afkeenna isticmaalo af ingiriisi baa inala noqday wax weyn oo aad u weyn markaasaynu afkeennii liidnay oo dillay dee carabina isaga hadalkiisaba iska dah hadda dastuurka waddankana ingiriisigu kuma yaallo somaliland dastuurkeeda maxaa ku qoran luqa luula inay maxay tahay soomaaliya luqada labaadna inay tahay carabi haddana dawladdu waxay wax ku soo saartaa in badan oo ka midi af ingiriisi ay wax ku qortaa dadkuna af ingiriisu wax ku qoraa waraqaa laysu gudbinayo af ingiriisa lagu qoraa waxaana dastuurka ku qoran waru af soomaali wax lagu qoro af carabi wax lagu qoro waxaynu awoodi weynay dukaamadeenna boodhka ku qoran inaynu ka dhigno af soomaali marka luqad dadkii lahaa aasayaan siday kor ugu soo kacdaa waa adagtay laakiin haddii qur-aanka lagu fasiro in shaa allah waxaan isleeyahay wuxuunbaa baaqi ka noqon waayo kitaabka qur-aani waa kitaab baaqiya ilaa yowmi alqiyaama ilaahay ballan qaaday inuu hadhayo wixii lagu qorana waxaan isleeyahay wuxuunbaa ka hadhi doonaa marka waxaabaan isleeyahay qaab loo nooleeyo af soomaaliga waxaa ka mid ah kitaabkan aynu caawa hayno oo isaga laftiisu wuxuu ka qayb qaadan doonaa inuu af soomaaligu dib uu u soo noolaado ama uu joogo oo dib uu u soo barbaaro idina caawa waxaan idinkula talinayaa afkiinni hooye inaad dib ugu noqotaan ardadii hore soomaaliyeed waxaa caado ahaan jirtay 3 biloodee fasaxa in baadiye la qabto oo nin kastoo ama da'dayda ama da'addii ku dhoweyd ahaa iskuulka marka laga fasaxo baadiyaa 2 bilood la soo joogi jiray taasi waxay xoojin jirtay dadkan inay dhaqankoodii iyo af soomaaligoodii ila baadiyuu yaallaye inay si fiican u soo bartaan iminka baadiyihiina wuu baaba'ay dee idinna waa ka xaragootaan baadiyaha soo maaha ina baadiye qabataanba wax fool xun la idinla muuqataa hargeysana af laguma hayo wuu baaba'ay aad buu usii dhimanaya waxaanan isleeyahay af soomaaligu hadduu dhinto xataa hadhow waxa idin garan waaye qur-aanka cid idin fasirta ilaa af kalena umaynan tallaabin keeniina waynu aasaynaaye marka waxaan isleeyahay kitaabkani af carabigii wuu noolayn af soomaalina wuu noolayn qur-aanka macnihiisiina wuu soo dhoweyn intaaba hadduu inoo wada qabanayo inuu meel weyn inoo degi doono baan rajaynayaa ilaahina subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa kii uu rabbi aqbalo ee dadku ay bartaan ee lagu badhaadho inuu ka yeelo صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين محمد رسول الله عليه صلاة الله